magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya 28 Oktoobar ee sanadka 2017 oo maanta ku astaysan waxa lagu waday in lagu qabto shir u dhaxeeya madaxda maamul goboleedyada dalka iyo waliba madaxda dawladda federaalka Soomaaliya waxaana ujeedada shirkaasi ay ahayd in lagu turxaan bixiyo dulduleelada siyaasadeed ee u dhaxeeya labada dhinac baaqashaan hore loo shaacinaya shirkaasi ku yimid lamana garanayo sababaha rasmiga ee dib ugu dhacay shirkaasi inuu qabsoomo 28 bishan Oktoobar oo ku astaysan maanta xildhibaan Maxamed Bashiir Daqare oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka dawlad goboleedka Hirshabelle ayaa ugu baaqay madaxda dawlad goboleedyada inay u hoggaansamaan shuruucda dalka iyo waliba awaamiirta mas'uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya waxaana uu sheegay inay muqaddis ama lagama maarmaan tahay in la qaato awaamiirta madaxda dawladda federaalka Soomaaliya anagu waxaan leenahay dawladda federaalka jiritaanka ummadda Soomaaliyeed waa muqaddis lama taabtaan haddii ay cabasho jirto in la wada hadlo waaye maamul goboleedyada wax tabanayaan way furantahay in laga wada hadlo balse jiritaanka iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed waa muqaddis waa lama taabtaan maamul goboleedyadu waa kuwii dawladda dhexe soo dhisay maxaa yeelay xildhibaanada laga doortay deegaanada maamul goboleedyada ayaa doortay madaxweynaha aqalka sare waa wakiilada maamul goboleedyada nidaam dastuuri ayaa jiro waxaan leeyahay dastuurka hal ixtiraam marka la wada fariisto dastuurkana la keeno cid maalmarsan meesha ay ka soo baxaysaa balse maamul goboleed iyo dawladdu wax wada tartami kara maaha dawladdu waa matalaadii ummadda Soomaaliyeed maamul goboleedkuna waa matalaad deegaano gaar ah marka wax la isla barbardhigi kara maaha dawladda Soomaaliya waa dawlad xurtana waa dawlad ummadda Soomaaliyeed ku midaysan tahay kama imaan dawladda Soomaaliya cirka kama imaan maamul goboleedyada ay ka timid haday noqon lahayd golaha deegaanka oo golaha baarlamaanka aqalka sare xukuumadda intaba deegaanada ay ka kooban yihiin dalkii ayaa ka wada dhaxayo waa midnimada Soomaaliya jiritaanka iyo la shaqeynta dawladda federaalka waa muqaddis ayaa leeyahay xildhibaan Maxamed Bashiir Daqare oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka dawlad goboleedka Hirshabelle ayaa waxa uu dhanka kale ka hadlay ammaanka deegaanada Hirshabelle waxaana uu sheegay in xaaladda deegaanada Hirshabelle ay tahay mid aanu wanaagsanayn 100% waxaana uu sheegay in degmada Mahadaay oo kamid ah deegaanada Hirshabelle aanu la garanayn dawladda iyo al-shabaab cid sida rasmiga uga talisa degmada Mahadaay 8 sano waxa la dhigi karaa shabaabna ma xukumo dawladna ma xukunto maxaa yeelay waa meel u dhaxayso saldhigeedu ma shaqeeyo amnigeedu ma sugno dadka degmada degan difaac degmadu ma laha waxaad moodaa maalintii in dawladdu ay joogto habeenkiina cidii raba ay soo gali karto marka xaaladaha guud ee amniga Hirshabelle oo wax qabad badan u baahan marka laga soo tago sida kale waa nabad arrimaha dhismaha golaha wasiirada iyo cadaaladda ayuu soo hadal qaaday xildhibaan Maxamed Bashiir Daqare waxaana madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waar ugu baaqay inuu mar walba ku taagnaado cadaaladda isla markaasina uu kala tashado dhismaha golaha wasiirada mudanayaasha baarlamaanka Hirshabelle waxaan filaynaa dhawaan golaha wasiirada in lagu soo dhawaaqo dhismaha golaha wasiirada waxaan leeyahay mid aad ka fiirsateen cadaalad ku dhisan ka fog ka fogna jaalaysi wada tashi ku yimid lagala tashaday xildhibaanada inay noqoto laguna dadaalo waajibaadka loo doortay inay gutaan madaxda Hirshabelle